السلام عليكم kusoo dhawaad barnaamijkeena hal daqiiqo maanta waxaan ka hadlaynaa Bosnia dalaca gobolka Balqaanka ee koonfur Yurub waxaana xuduud leh Croatia, Serbia iyo Montenegro badka guud waxa lagu qasaa 9,909 kilomitir square waxaana caasimad u ah magaalada Sarajevo tirada dadka waxa lagu qasaa 3 milyan oo qof diinta u badan dadka Kristaan waa diinta Islaamka luqadaha rasmi ee dalkan loo hadlana Bosnia, Serbia iyo Croatia magaca Bosnia waxa uu ka yimid ereyga Bosana waxaana loo jeedaa biyo maxaa yeelay dalkan waxa uu leeyahay biyo dhacyo harooyin iyo wabiyo fara badan qarrada dalkan waxa samaysan tahay sida qalbi oo kale taasina sabab dalkan lagu naanaysi dhulkii lahayn muuqaalka qalbiga boqortooyada Islaamiga ee Cusmaaniyiintu waxay dalkan xukumayeen wax ka badan 400 sanadood waxaana xukunkaas soo dhalaaday sanadii 1980 dalkan waxa lagu xasuustaa xasuuqa ay Serbiyaanku u geysteen muslimiinta Serbiya sanadii 1995 ee ogolayay 8,000 oo niman iyo wiilal ah waxaana xasuuqan lagu joogaa muddo 25 sanadood masjidka Qazi Qushrubeek waa masjidka u da'da weyn ee dalkan waxaana la dhisay qarnigii 16aad soo kale masjidkan waa masjidkii ugu horeeyay koronto lagu xiro ama lagu isticmaalo dalkan wuxuu ku mid yahay 10 dal ee ugu kafay isticmaalista badan caalamka oo dhan dadkii uu cansanayo wadankan soo maray kamid ah Ali Izzat Begovic, Miralem Pjanic iyo Edin Dzeko lacag dalkan waxa lagu magacaabaa marka